wadaal dhaqameed waxgarad iyo nabadoono ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa soo dhaweeyay go'aankii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku hakiyay mashruuc lagu horumarin lahaa caasimadaha maamul goboleedyada qaar sababtana ay ahayd in markaasi ay ka wada faa'iideystaan maamulada oo Hirshabelle iyo Galmudug ay markaasi ka maqnayd warbixin ku saabsan amuurtaasi waxa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle inooga soo diray Nuur Macalin Hirshabelle iyo dawladda federaalka waa diris ayaka isugu dhow waa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe oo kulan ku yeeshay Jowhar kuna taageeriyay hadalkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadanaa in dib loo dhigo mashruucii ay kala saxiixdeen wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada kana maqnaayeen maamulada Hirshabelle iyo Galmudug odayaasha dhaqanka ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ka codsaday in uu hirgeliyo mashruucyadii uu ka dhex dhigay Hirshabelle oo ay ugu horeyso wadada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho anaga waxaan rabnaa anaga yaraankii oo maamul goboleedyada waana dawladda federaalka iyo tan Hirshabelle waxaan leeyahay haddii asqalaaf jirana hoos ha u dhameystaan haddii sida aan dareemayn ay tahayna waa ladii iloobi ya aan maqlin dadka ugu dhawaanahay diriskii aan nahay dadkii dawladda jeclaan nahay in afar maamul goboleed oo waliba qaarkood aan ognahay inay mucaarad yihiin ay dawladda ay taabacsaneen qaarkood dhammaantood milihi aan ognahay iyo waxa saxaafadda ka dhacay iyo dawladda ma taabacsan dhaha aan la yiraahdo waa la siinaa annakii taabacay idriskeen xaasha lillahi arintaas xogaayir aad ayaan ugu xumaanay maanta se waa faraxsanahay oo dibaa loogu noqonaadi waxaana dibaa loogu noqonaa in la adkeeyo nafteeda shaka ku jiraaba dibaa loogu noqonaadi bal yiriba waa laga noqday saxiixa la kala qaatay ma maqlin saana loo qaybsaday ma maqlin marka wali shaka yaan qabnaa dawladdu waxaana in la shaka bixiso sida hore loo sheegane wixii hore loo dhagax dhigi wixii loo qaban waay kulay shacabka wali loo soo bandhigin waxaan ka rabnaa taas federaalka uma haysanee dawladayna Hirshabelle madaxda ugu sareysan ka sugaynaa wixii sala la dhigi waxay u qabsoon waayeen siyaabahaas waxaan ka sugaynaa dawladayna ka sugaynaa dawladayna waa u hambalyeynayna waan jecelnahay waan soo dhaweynaynaa hadalkii ra'iisul wasaaraha maxaan ku wada sheeg aad baan u soo dhaweynaynaa waa midaan ku qanacnay haddii maxaan ku sheeg go'aanka hore wasiirka aan ka maqalnay la bedelay ee la yiri maamul goboleedyada waa loo simayaa waan soo dhaweynaynaa go'aankaas aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa waxaan rabnaa si cadaalad ah oo maxaan ku raadayay hufan oo dawladayna waan taageersanahay maamul goboleedyada mucaaradka kuma jirto Hirshabelle waa lug gacan ku taageernay habeenkii meeshan maxaan ku sheegay la dooranay madaxweynaha dalka ninka kali oo maxaan ku sheeg loo mudaharaad gobol kali oo laga mudaharaaday oo laga soo dhaweey waa Hirshabelle meel kale inta maamul kale inta maxaan ku sheeg si loogu mudaharaaday ma jirto waan ku qanacsaneen hal qof oo mucaarad xataa nooguma jiro meeshan kulli muxaafidiina wadanay in haddana la yiraahdo wixii soo dhacay Hirshabelle kuma jirto la yiraahdo waxna qabta ma waxa kale inta ku daray mashaariic badan meeshan la dhaxdhigay mashruuca ugu weyn wuxuu ahaa jidka isku xira Jowhar iyo Muqdisho dhibaatada ka taagan nin walba xogaal u yahay nin moogma jira waxa ka daran dhismihii iyo wixii la dhagax dhigay waxa ka daran abni xumada ka jirta meesha marka waxaan u mahadcelin hadanahay ummadda ku nool Hirshabelle hadanahay amba dhaqan ku nool Hirshabelle hadana waxaan aad ugu mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayran aad ugu mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha waxaan ku taageeraynaa inay ummadda Soomaaliyeed meel ka sii joogtay u siran tahay aan ku taageeraynaa marka ay soo gaartay wasiirka iyo qolada deeq-bixiyaasha iyo maamul goboleedyada kala qaarkood waxay saxay markay soo gaartay inuu joojiyaan ka war helnay inuu iyadoo maamul goboleedyada aysan u sinayn wax dambo oo heshiiskaas ka dhaqan galaa ma jira inuu Iiraan ka war helnay baaqi ka soo baxay mar labaad wasiir Beyle oo yiri arinta dib aan ugu naqahaynaa
oo maamul goboleed iyagu u dhan yihiin aan saxiixayna uu yiri oo dib asigan ugu laabtay markii uu arkay baaqi ra'iisul wasaaraha amba amarka ra'iisul wasaaraha ka soo baxay uu arkay oo suuna uu aqbalayna aadan ugu mahad celihaynaa anaga dawladda federaalka dirisaalanahay hadana maamul goboleedka Hirshabeelle wax badan oo ka suugaynaa jiro oo ay kamid tahay wadada ay hore u ballan qaaday dawladda waxaan ka suugaynaa ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre goobo uu dhagax dhigay oo laba goobood ahaan ilaa 4 goobood oo Hirshabeelle dhagax dhigay qaas ahaan caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar waa ka dhowraynaa dawladda hal sano u dhiman halkaas sano dawladdu u dhiman mashruuc oo ballan qaaday ra'iisul wasaarahana waa ka sugaynaa hadaan nahay ummadda ku nool Hirshabeelle Nuur Maxamed Macalin SBS TV Jowhar